Gambo Talo Lagu Dayey haweenka Soomaaliyeed waxa ay mas'uuliyadda iyo xilka ku fuula marka ay 3 sano jirsadaan waa marka ay 3 sano gaadho miyaanina tayar lagu oran heblaayo kaala ii soo qaad koobkaas heblaayo koobkaas ama alaabtan oroda guridiisa gee danka kale ina tayari iyada ayaa istirtaa waxa ay qaadataa mafiiqda waxa ay xadhaa guriga waxa ay ururisaa gurboodkii ama aagukii guriga waxa ay ilaalisaa caruurta intii ka yaray danka kale wiilkii inanta yar leeka waxa uu bilaabaa qalqaalinimo inuu ku soo adeego iska daay daaqada ayuu koraa kubadda ayuu eryadaa waa la soo dakhraa isaguna wax buu dakhraa waxa aad arkaysaa inantii yaray oo wiilkii iyada ka weynaa u adeegaysa isagoo lugta ka xidhan biyana ka waraabinaysa marka uu ooyana aamusiinaysa inantii yaray way kortaa waxa ay gaadhaa 5 sanado marka ay 5 sano gaadho waxa lagu aaminaa inay kariso cuntada qayb kamid ah ama dhamaanteedba waxa laga yaabaa inantii yaray inay hooyadeed meherad ganacsi suuqa ku leedahay oo ay subaxii u kala lahdo kadib iyadu ay cuntadii u kariso xaafadda oo dhan hooyadeedna qadada ka daba qaado inanka iyada leegay waxbarasho ayuu nasiib u helaa waxbuu dhigtaa haddii waxbarashada lagu tartamana waxa laga yaabaa inay inantii yaray ka sareyso inantii yaray waa ay kortaa waxa ay la wareegtaa mas'uuliyadda xaafadooda meheradii hooyadeed ay ka saacidi jirtay ayaa lagu soo wareejiyaa talada xaafadoodana waxba laga weydiiyaa sidoo kale aabaheed ayaa waa ay u xinaysaa darka ayay u maydhaa haddii uu xanuunsadana waa qofka ugu horeeya iyo qofka ugu dambeeya ee rogroga noloshiisana ka warhaya danka kale inantii marka ay korto inantii waa la gursadaa waxa ay noqotaa marwo gurigeeda ka adag waxa ay soo reer magaalaysaa haddii walaalaheed ku nool yihiin deegaan reer miyiga waxa ay keentaa gurigeeda waxna waa ay bartaa sidoo kale waxa laga yaabaa inuu guurkii ka xumaado oo ay koriso 7 aabahood nool yahay laakiin iyada ay mas'uuliyaddeeda dhikada ka saaran tahay sidoo kale markii ay noqoto waxa ay mas'uuliyaddeeda qaadaa caruurtii ay iyadu dhashay kuwii ay sii dhaleen biyadhaca barnaamijkeenan wuxuu ahaa haddii haweenku talada dalka ka qayb gala maxaa isbedel imanaya maxaa horumar laga gaadhaya dumarku haddii ay talada dalka ka qayb galaan waxa ay matalayaan qaybta ugu badan bulshada dumarku waxa ay xaq u leeyihiin in la doorto inay iyaguna wax doortaan waa qaybta ugu badan bulshada ee magan loo noqdo maalinta uu qof doonayo in doorasho laga saaro haddii ay tahay madaxweyne ku xigeen ama xildhibaan intaba waxa ay ka doodayaan arrimaha iyaga u khaaska ee golayaasha lagaga dooday imka dumar la'aan waxa ay u doodaysaa kumanaanka hooyo ee ku iibiyo dariiqyada khudradaha yaryar ama alaabta yaryar kuwaasi oo aan haysan suuli ay ku kaajaan haddana maalin kasta cashuur laga qaado waxa ay gaboodu noqonaysaa una doodaysaa kumanaanka caruura ee dhibban ee aan maanta haysanin cid iyo ciirsitoona haddaba maasidan yar waa maasigar naqsiya oo aan ku tilmaamayo dumarku haddii intaas oo xil soo qabteen oo ay ku guuleysteen mid kaliyana aanay ku guul daraysan miyaanay u qalmin inay golayaasha ugu sareeya dalka ka arrimiyaan iyagana la doorto ayna wax doortaan inkastoo dadku badalashada aanay dhoololaynin inkastoo dhalaankii labka alle igu dhararsiinin inkastay walaalkay dhamuungool u dhagaraysay dhowr guyaal markaan gaadhna baan kala dhaqaaqnaaye dhamayare walaalkay rumaadeeliskaba aad dhaqdhaqaaqa waa kaa badshay dhagaxa tuuriyeeye aniguna dhaqaalaynu kacay dhisida qoysaad dheel iyo ciyaar iyo ma tago dhihida sheekaad dharka oo la maydhiyo mafiiq dhali karkarintiisa dhowridda caruurta iyo sidii dhabarka loo saaro xanjeerkoo dhexdaa lagu xidho dheeli laga dhowro dhiqid weel hadhuudh kale dhurkii dhali karkarintiisa dhaldhalaalka guriga iyo tabtii dhaanka loo ororsho dhisid ilaa xidhu mucdiis lahoo dhareer u saaxiiba dabaylaha midkii aan dhacay roobna dheeliyeynin aniguna intaasoo dhibaan dhabarka saartaa udubkii dhaxaad baanahoo aana daadayne danka kale markii loo dayo ee dhab loo eego marwo aan dhagxumo keenin oo say dhistaan ahaye awlaad dowrah korintooda baan dhabarka saartaaye aabbihii mid aanuu badhimo baan dhakada saaran dhuxul aanu gado baan tacliinkagaba dhiibaa dhaxantiiyo dabaylka ma hoydoo kama se dhuundhuunto dhafoorkayga waa laga arkaa dhiif waxaan maraye cabashana ma dhiibtoo dadkana caawinka ma dhowro haddii aan xilkaa dhowray oon dhabarka soo saartay haddii aanu dheeliyin markuna gurigii lay dhiibtay dhulkii aan ka beermiyo dalkii maanan taladooda golayaal arrimiyiyo dhammaan guurtii dhinaceeda wasiir magacyo dheer iyo sarkaal dhiibsan noqonaynin